السلام عليكم ودن منو sheegi kartaa magacaaga iyo doorka ku aadan gadi socodka doorashada magacayga waxaa la yiraahdaa Avocado Umar Maxamed Cabdulle waxaan ahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal 2016 gudoomiye waa maxay sababta ay Soomaaliya sanadkan doorasho u qabanayso sidaan wada ognahay dawladda hadar waqtigeedu dhamaanayo waxaa la dhisay 2012 waxayna kamid ahaa mandate-keeda in dalka laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah balse duruufo jira awgeed 28 July 2015 xukuumadda iyo baarlamaanka waxay go'aan ku wada gaareen in dalka aan lagu qaban karin doorasho qof iyo cod ah marka sababta loo qabanayo doorashooyinku waxay tahay in dadka Soomaaliyeed golayaasha matalaya iyo taladeeda ay hayaan dad Soomaali soo dooratay oo aysan noqonin dad la soo xulay marka sidaas darteed ayaa waxaa loo qabanayaa doorasho nooc ka mid ah doorashooyinka oo doorasho dadban ah matalaaduna waxay noqon doontaa mid qaybaha dadka Soomaaliyeed dad badan oo ka mid ah ay ku lug leeyihiin in lagu soo doorto golayaasha dhismi doona aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare labadaba sanadkii 2012 dalka waxa ka dhacay doorasho sanadkan 2016kana waxa qabsoomaya doorasho kale waa maxay farqiga u dhaxeeya labada doorasho gudoomiye doorashadan hadda la qabanayo oo aan ugu magac daray doorashada dadban waxa ay ka duwan tahay tii 2012